الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكن سير بين الشيء لها نعاوة ونبينا بري صلى الله عليه وسلم وحكفى إذا سنة يددك لقى قرآن بديي، لقى علم بديي، لقى حول بديي، لقى حق بديي. dadkaasaa ka faa'iideysanay cid waliba iyadoo ka faa'iideysanaysa haddana qofkii odhan lahaa dee adiga waa laga dheereeyay xoolo badan oo sadaqaysata ma haysid, cilmi badan oo sheegta ma haysid, xoog badan oo ku cibaadaysatana ma haysid, quraan aad akhridana ma taqaanid, af carabi aad ku ducaysatana ma taqaanid. kii odhan lahaa sir buu ina baray nabigu calayhi salaatu wasalaam. cawasho noocaas bay asxaabtu u soo gudbiyeen oo waxay dhahaan dahaba ahlu duthuri al-ujuur. rasuul allow dadkii maalka lahaabaa dee la tegay ajrigii oo dhan iyo wixii la sadaqaysanayay dee sadaqada wixii ay ka helayeen annaga waxa ma hayno maxaan yeelnaa. dikrigii buu baray nabigu calayhi salaatu wasalaam. marka kelmadeennu waxa weeyaan cajaa'ibu dikri wa cadaa'imu ajri. dikrigu cajaa'ibta uu leeyahay xuska ilaahay la xuso subxaana wa tacaala iyo ajrigiisa weyn waanaad la tartami karaysa dadkii dhinacyadaa badan kaa dheereeyey saa uu rasuulku u sheegay sala allahu calayhi wasalam. markaas subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar dikrigaasuu baray. sidoo kale min cajaa'ibi dikri waxaa ka mid ah iyadoo dadku ay u arkayaan inuu camal yar yahay oo waxyaabo badan culays aanu lahayn ayaa haddana wixii culayska lahaa iyo wixii adduunka badani uu ku baxayey ee khayrka laga raadinaya qofkii sameynaya aad ka dheerayn kartaa. waa min cajaa'ibi dikr. xadiiثu warinaya tirmidi oo saxiixa min xadiiثi abi darda radia allahu canh ayaa nebigu ummaddu la hadlay. asxaabta qura lama hadlayo, ummaddu la hadlayo wuxuu ihi alaa akhbirukum bikhayri acmaalikum, war ma idiin sheegaa camalladiinna waxa u khayr badan وأرفعها في درجاتكم درجooyinkiinana u dheer oo u sareey badan oo darajo way ku gaaraysaa darajooyinka u sareeya وأزكاها عند مليككم ilaahay agtiisana u barako badan oo u wanaagsan oo u khayr badan. وخير من إعطاء الورق والفضة من إعطاء الذهب والورق kana wanaagsan lacag iyo dahab la bixiyo sadaqa loo bixiyo وأرنا أفراد. وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. كان خير بدن أنتو جهاد كشان إن عدوك قورتك قرتان أما يسقوا قورتين أو إذا كقروا إذن الله وشهيدان وشان الرماد وعمل كوجو ناكسن إلهي يكتي سوق بركة بدن وقدر تشوين صدقة ذهب كي العقد كفي عن جهاد كان كفي عن حديث كنا حديث ساعة. قالوا بلى يا رسول الله. أصحابته waxay dhahay nabi Allah noo sheeg uu soo gaabiyay wuxuu adhikr wa ilaahay Allah subhanahu wa ta'ala. macnaheedu waxa weeye hadii laga xoog bato laga jihaad badiyay laga xoolo bato laga sadaqa badiyay iyo inta kale in soo sheegnayba deeyaan laga wardi badanin Soomaha wardigu miyuu ku dhibaya wardigu kuma dhibayo odayga kara islaanta kara ragga kara dumarka kara qofka cilmi leh ka jaahilka ah kadmiyi jooga ka magaalo jooga kullu waahid yastatiicu al-adhkar qof waliba inuu wardiga akhriyo uu kari karaa uu iska wardiyo. min ajaa'ib adh-dhikr waxa kamida waa cibaadada ugu sheegid badan quraanka xaga soo celcelinta 268 jeer buu ereygaas ku soo noqday quraanka isagoo ismiya ama ficil ka noocyadiisa kala duwana intaba ilaahay adoomaha jeclaysiinaya wardiga. min ajaa'ibi ay kamid tahay waa arinta saddexaad dikriga quraanku markuu cibaadooyinka kala sheega si aan u sheegin buu wardiga u sheegaa dikriga erayga kathiran buu ilaahay raaciya kathiran وذاكرين الله كثيرا اذكروا الله ذكرا كثيرا وذكروا الله كثيرا. هذا فعل أمر يهي فعل ماضي iyo ismiba erayga kathiran buu ilaahay raaciya.
culimadu waxay leeyihiin waxa kathiiran loo raacinaya dee dhibba ma leh inaad aayaruu nafka dhaqdhaqaajisa mee dhib kugu leeda ordi mays kaca fadhiisan maysid sida salaada gaajoon maysid sida soomka sida xajka ordi maysid dee afkun dhaqaaji baa lagu oo astaqfirullah subxaana allahi walxamdu lilah wardiyada ugu qaalisanna waxaa ka mida laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir waxaa ka mida kaa uu nebigu ina baray aadka u fudud كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ولا كلمة عربك ويكون علوسي ميسانك عربك ويكون فضودي إن عربك آخر ده ميسانك آخرنا ويكون علوسي إلهينا وتعلي بل الرماء يسقوا بيراك إمام البخاري وحديثك أو قصة ختمة صحيحيس قرنا معي إلهينا وتعلي صدح راسك كل صداه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بل كيبان كرين قف هل مرة ما الله تشير بالله قيمة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واحفظ وحل بعضه كثيرا إلى هاي الراعية عبادوين كوا وسائطية وسائل لكن ذكر هو مقصودك عبادوين كوا وحد وحكو قاري سكلقو قاري وحسكن إلهي سبحانه وتعالى إن هذا إلهي حسن من عجائبه وحا كمدا ووحنا فضلي او كهلي ذكرغو قفك الهي حسيا معناهيدو waxa weeye waa qof ilaahay ku weyn yahay qalbigiisa waxa la yiraahdaa man ahabba shay'an akthara min dhikr qofka shay jeclaada sheegiisu buu badiyaa Soomaa qof waliba waxa uu jecel yahay ku buuxsan waxaan uu urku doonayo inuu afku iska daldalaya adigoon ogeyn kolba waad soo yara wareegaysa haddana waad ka dhawaajinaysaa qoladan imika siyaasiyiinta campaign-ka ku jira haddii aad dhowr saacadood la fadhida imise jeer buu ka warramaya tartankiisa iyo waxa istadis yiraahdeen iyo wuxuu uga baahan yahay iyo waxaad ka yeelayso kaynan guursanaya imise kula soo qaaday ka ganacsi ku jira tartanka wada imise kula soo qaadaya mid waliba baylahadiis iyo waxa bogiisu tabanaya tii uu ku celcelin marka adoonku inuu ilaahay aad u sheegaa oo hadal hayaa waxay sheegaysaa uu ilaahay ku wardiyaa inuu ilaahay ku weeyo oo ilaahay ilowsanay subxaanahu wa ta'ala ajaa'ibta dhikriga waxa kamida iyadoo ilaahay uu quraanka akhrintiisii soo sheegay oo uu salaadii soo sheegay ayaa haddana ereygan si dheeraada u sii sheegay utlu ma uxiya ilayka اتل ما أوحي إليك من ربك من الكتاب اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر حاكو حيقة ولا ذكر الله أكبر اتل ما أوحي إليك من الكتاب آخر بالي شيء قيل لقوة وحيودي قرآنك وقرآنك آخرين تيس وأقم الصلاة والله ما أمره يسكت بردع قرآنك آخر هي الصلاة أوق haddana ilaahay wuxuu raaciyay wala dhikrullaahi akbar wuxuu macnuu noqonayaa xuska ilaahay baa ka sii weyn baaba la odhan karaa iyadoo dee qur-aankiiba akbar dikri uu yahay macnaheedu waxa weeye dikriguna cibaadooyinka u waaweyn weeye waa cibaadada weyn ha ilaawi qur-aankii akhri oo salaadii oog oo haddana dikrigaa sii weyna ha ilaawi waa min cajaa'ibi waxaa ka mida xuska aynu ilaahay xusayno subxaanahu wa tacaala waxaynu ku helaynaa wax aan cid kaleba laga helayno inuu ilaahay ku xuso adoonkaaga inay iska miskiinka halkan jooga hadduu ilaahay ku xuso ka war magacaaga sheego oo darajadaada sheego oo dembi dhaafkaaga sheego wax la yaab la wey ilaahay baa wuxuu leeyahay udkuruuni yaa ayuha aladiin fadkuruuni adkurkum washkuruu lii walaa takfuruun aniga xusa baa ilaahay u leeyahay fadkuruuni adkurkum ilaahay baa wuxuu leeyahay xusa anna waan idin xus ima hadnaqo hayga gaaloobina marka xuskaynu ilaahay xusayna waxaynu ku helaynaa inuu ilaahayna xuso subxaanahu wa tacaala xadiidkii saxiixa waman dakaranii fii nafsihi dakartuhu fii nafsi waman dakaranii fii mala'in dakartuhu fii mala'in khayrin minhum qofka si gaara i xusa anna si gaaraan u xusi baa ilaahay qofka jamac dhexdii igu xusa anna jamciisa mid ka fiican baan ku xusi waxa macnaha aad u dhadhamiyay inagu waa laga yaabaa inaan aad u dhadhaminaynin asxaabtii nabiga
أصحابي قارئ رسولك صلى الله عليه وسلم قرآن كوكب وسدي أي أبي بن كعب أي النبي يقول إلهي وحي فري إن لم يكن كجود الآخر أبي مركا وحوري أذكرت هناك وما هل كاسال يقول شيء عالم كسر أيال يقول شيء وما مقع يقول إلهي شيء أنا قابي سؤال هاوك شيء فبكى مركا سوء أيو فرحة درادي أدلوي وبي كان إسكام مسكين كعربية إسكت شوجة جزيرة العرب بقى إلهي عالم ككرم عيسى كشيء أيو ضبطنا البيول والله وفرح هذا الكيود بيسين ولهاي كحصة سبحانه وتعالى مركا سولا علمي درين كاسوحة ويا مركا درين أنا أصحابته نقول إن درين نايت مركا من عجائب الذكر وعظيم أجري أبال كيساوين يا أجري كيسا بدن يا عجائبته أو حسك إلهي اللية دوينا هناك قاضين وحاصر ميدو شراسة وسهلية وحاصر فضلية ولية بل إن آير فريستو هذه كلها يبقى تمربط بحنيث عجائب تذكر واحد دوي بدينه لماذا قاركضوا حيكون ترى الروح إذا كده حتى شركا إنه وحكة ترى هي التمرتيس ومن عجائب وهدي هذه إلهي حصة قفك إلهي حصة يقفك كلا يسكو حوق معها يسكو شقة معها يسكو تمر معها حتى هذو رجي يهي تمرت تشينسيga isku mid maaha wariya fiya garad baratay bal iska digri iska wardi arin cajiiba way odayaasha haday ila wardiga badiya waxbay ka taraysaa halka dukaamada ka iibsataan qaar baa oran doona war bal inaga daay ma sii sugnee waa arin cajiiba way daliilkiina waynu haynaa nabiga kaleey salaatu wasalaam inantiisi Faaduma oo jeclaaba u soo ashkatooto waxay tiri adoomahan aad qaybinaysa gacmiiba ay baxo shaqadii ugu baxay balqaari shaqeeyaysi wuxuu waxa taa wax kaaga fiican baan ku sheegayaa oo daalka kaabiya oo xoog ku yeelato oo ku shaqeysan kartee akhriyoon intan waa dhikriga subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar inta ku celceli hada waa nabi maxamed oo inantiis miyu caameynay inantiis maya waxa uu wanaagsan buu tilmaamaya waxay leeyahay culimadu waxa laga yaabaa qofka bani aadamkii had iyo jeer dhikriga وكانوا سعاد كهلا فرحات الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ضدك مؤمنين تا قلبي قدوح كحسلا كراح يستحسك إله هي ذكرك سوماها قفكم مركا وسعادة دريمة وفرح سيء قلبي يسود دقو ها دفاعي سيء تمرتي سكربة يوقع ومعروف مركا ورسية مورال كيسو ضعيفنا دفاعي سيء تمرتي سوية هذا إنك هذه الشقة كتير إسكابا كلون هذه لقى فرحية قصل كات شقة كتير رئيس سيده الله عاد مريس هدي بلايا لغو شيغان alaabta waad isku laabays waad kala laabsanaysaa wax jira mata markaas taasu tamartiina wuxuu ga taraya markaynu soo ururino weyn dheerayna afwan waxaynu leenahay dadweynaha guud ahaan ba qofku meel kastuu joogaba shaydaan baa inagala dagaalamaye kaasuna aynu ka feejignaano marka soo yaro wareegtaba dad shaqeynayso dad fadhido dad seexanayso dad masjid tukato wardigu badi khayr laga badin ma insha Allah Allah inaga aqbalo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh